kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka oo aad kala socotaan Hiil Shacab TV. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelka nafro si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah Ethiopia oo mar kale wajahaysa mawjado kacdoon ah iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed oo xaqiijiyay in dalkiisa shirqool siyaasadeed loo dhigay. Cali Khaliif Galeer iyo Muuse Biixi Cabdi oo ka shiray arrimo xasaasi ah iyo kulamadaasi oo aan waxba la isku reeban. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka soo noqday madaxweyne hogaamiye maamulka Puntland Cabdiweli Gaas oo sheegay in matalaadda Muqdisho ay tahay kalmad xaq ah balse si baadil ah loo raadinayo. Shiinaha waxa uu ka nixiyay qorshe Somaliland ay ku doonaysay in ay ku hesho aqoonsi caalami ah. Wararkii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbin doonaa. Sidoo kalena waxaan idin haynaa daawadayaal warbixin kale oo ku saabsan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland oo dib u furfuraya siyaasadiisa ku saabsan guud ahaanba dalka Soomaaliya gaar ahaan dhinaca dawladda dhexe ee Soomaaliya. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelka nafro si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Waa maalinimo Khamiis ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 2 bisha July 2020. Warkaas oo dhan waxaad kala socotaan Hiil Shacab TV. aynu ka horeynay kacdoon ayaa ka socda dalka Ethiopia iyadoo looga soo horjeedo dil dhawaan loo geystay fanaan caan ka ah gudaha dalkaasi oo ay dileen kooxo hubeysan isla markaana taageerayaasha fanaanka iyo qoomiyadda Oromada oo uu ka soo jeeday ayaa waxa ay codsanayaan in cadaalad ay helaan. Military ayaa lagu daabulaya magaalooyinka waaweyn oo caasimadda Addis Ababa ay ugu horeyso. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa idaacadda Fana u sheegay dilkii fanaanka qoomiyadda Oromada ka soo jeeday ee lagu dilay Addis Ababa habeenkii Isniintii inuu ahaa mid si weyn loo soo qorsheeyay. Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay in kuwa dilay Halaji Hoduneza ay doonayeen ujeedooyin gaar ah iyo in qalalaaso ay ka abuuraan dalkaasi iyo wax u dhimida midnimada guud ee dalka Ethiopia sida uu hadalka u dhigay. Abiy Ahmed ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigi doono kuwa dilka geystay ee doonaya inay dhibaateeyaan xasilooni darrida Ethiopia iyo midnimada ummadda ka dhaxaysa. Ethiopia waxa ay weyday nolol qaali ah. Dilka fanaanku waxay aaminsan tahay inay geysteen kuwa wax u dhimaya midnimada iyo nabadda Ethiopia balse si xoojin doona israbitaankooda bulshada reer Ethiopia iyo in rabitaankooda la hor istaago kuwa dambiilayaasha ah ayuu yiri Abiy Ahmed oo caro xoogan ay ka muuqatay mar uu ka hadlayay rabshadaha iyo dadka ku dhintay dibadbaxyadii ka dhashay dilka fanaanka ayuu sheegay aynu soo bandhigno cabashadeena anagoo ilaashanayna nabadgelyada isla markaana ka hortagayna dambiyada kale. Ethiopia waxa wararkii ugu dambeeyay ee laga soo warinayo ay sheegayaan in iminka ciidamo military ah lagu daabulayo guud ahaanba magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. Addis Ababa ayaa ugu horeysa wadooyinka waaweyn ciidamo military ah oo aad u feejigan ayaa la soo dhigay iyada oo la doonayo in lagu xakameeyo dadka careysan ee dibadbaxyada sameynaya. Isla maanta oo Khamiis ah ayaa la filayaa in fanaankaasi caanka ah la aaso laakiin taageerayaashiisa iyo qoomiyadda uu ka soo jeedo guud ahaanba waxa ay diideen in fanaanka la aaso iyadoo uusan cadaalad helin. sidoo kalena waxa wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in booliiska ay soo qabteen 2 qofood oo la tuhunsan yahay in dilkaasi ay ka dambeeyeen baaritaano xooggan ay wadaan. dadka taxliiliya siyaasadda arrimaha gudaha Ethiopia ayaa sheegaya in Ethiopia iminka ay ku socoto waddo khatar ah haddii Abiy Ahmed siyaasad furfuran uusan la imaanna ay suuragal tahay in Ethiopia dhabaha burburka ay qaado. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya soo noqday madaxweyne maamulka Puntland hogaamiye Cabdiweli Gaas ayaa ka hadlay matalaadda magaalada Muqdisho isagoo sheegay in ereygaasi uu yahay kalmad xaq ah balse baadil lagu raadinayo. madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Gaas soo noqday ra'iisul wasaarihii hore ee dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee murugsan isagoo sheegay in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay hareer mareen sharcigii iyo heshiisyadii ka dhaxeeyay maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe. Gaas ayaa sheegay in maanta aysan muuqan xal laga gaaro arrimaha taagan gaar ahaan doorashooyinka xeerarka baarlamaanka federaalka meel mariyay toddobaadkii la soo dhaafay wuxuuna si qoto dheer uga hadlay rajo xumada laga qabo in dalka doorasho ay ka dhacdo.
wuxuu kaloo ka hadlay arrinta gobolka Banaadir ee baarlamaanka meel mariyay in 13 kuraas uu ku yeelanayo aqalka sare hase ahaatee waxa uu ku tilmaamay xaq aan baadil ahayn maadaama buu yiri aan loo malin wadadii sharciga ahayd haddana xaqaasi mararka qaar dadka qaar ay u raadinayaan qaab baadil ah waxaa lagu dhawaaqayaa oo cod dheer lagu leeyahay Banaadir waa inay heshaa matalaadeeda waa sax laakiin waa kelmad xaq ah oo baadil loola jeedo yaa diidan inay hesho Banaadir matalaadeedii cid diidan ma jirto dastuurku wuxuu qorayaa in 18 gobol min 3 gobol saddexdiisa waaya ma garanayo marka waxaa la rabaa in iyadoo dastuurka lagu dhaqmayo la ilaaliyo in gobol walba waxa uu xaq u lahaa uu helo sadbursina aan lahayn naaqusna aanu lahayn ayuu yiri Cabdiweli Gaas wuxuu sheegay inuu aad uga xun yahay in dadka damiirkooda la kiciyo lagana dhaadhiciyo in maamul gaar ah ama qabiil gooni ah uu ka soo horjeedo xuquuqda gobolka Banaadir laakiin wax walba ay ka muhiimsan tahay in la ilaaliyo wixii heshiiska lagu yahay ee dastuurka uu qeexayo tani markii baarlamaanka federaalka Soomaaliya ansixiyay xeerarka maamulka gobolka Banaadir uu ku jiro ayaa waxaa diidmo cad keenay maamulka Puntland iyo waliba maamulka Jubbaland kuwa oo sheegay in hanaanka loo maray ay tahay arintaas mid aan sax ahayn iyaga oo codsaday in midnimada ummadda la ilaaliyo isla markaana 4.5 oo Soomaali ay ku heshiisay aan dib looga laaban waxaana taasi ay keentay in Puntland ay mar kale cirka isku shareerto cabashada ay ka tahay dawladda dhexe ee Soomaaliya Somaliland haddii aynu eegno madaxweyne Muuse Biixi ayaa waxa uu qaabilay Cali Khaliif Galeer kulan xasaasi ay yeesheen oo aan waxba la isku reeban madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa madaxtooyada kulan gaar ah kula qaatay hogaamiyaha maamulka Qaatumo Cali Khaliif Galeer kulanka Biixi iyo Galeer ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay ee nuuciisa kaasi oo diiradda lagu saaray qaabka ay xukuumadda u fulin lahayd heshiiskii 2017 lagu kala saxiixday magaalada Caynaba madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Siilaanyo ayaa muddo ku siman 3 sano ka hor heshiis la galay hogaamiyaha Qaatumo State Professor Cali Khaliif Galeer kaasi oo weli si rasmi ah aan loo fulin qodobadii ku xusnaa heshiiskaas oo fulintiisa ay lahayd xukuumadda Muuse Biixi maadaama ay meesha ka baxday xukuumaddii Siilaanyo ayaa noqotay mid laga gaabiyay isla markaana uu madaxweyne Biixi dhagaha ka fureystay baaqiyo dhowr ahna loo jeediyay sida ay warbaahinta gudaha ogaadeen madaxweyne Muuse Biixi iyo Galeer ayaa si qoto dheer uga hadlay qaabkii loo fulin lahaa heshiiskaasi oo ka kooban 6 qodob oo waaweyn Cali Khaliif Galeer ayaa madaxweyne Muuse Biixi ka dalbaday in uu si wanaagsan oo ku haboon u fuliyo qodobadaasi isla markaana uu ku dhiirado furista dastuurka Somaliland oo uu ka tirsanayo cadaalad darro baasan Galeer ayaa ku doodaya in xilligan ay munaasib ku tahay in dib loo furo dastuurka iyadoo meesha laga saarayo sinaan la'aanta ka jirta Somaliland isagoona dhowr jeer oo horena fagaarayaal badan kaga hadlay arrinkaasi barnaamij lagu magacaabo tabliiqa siyaasadda ayuu keenay isagoo uga hadlaya hadba arrimaha muhiimka ah ee la xiriira dhinaca Somaliland iyo maamulkii Qaatumo ee isaga uu hogaaminayay heshiiska hore u dhexmaray isla wararka Somaliland ayaynu ku guda jirnaayay dawladda Shiinaha jawaab kulul ay ka bixisay xiriir ay sheegeen Taiwan iyo Somaliland oo aan aqoonsi caalami ah haysan in ay yeelanayaan dawladda Shiinaha ayaa si carar leh uga jawaabtay xiriirka ay sameeyeen Somaliland iyo Taiwan oo ah gobollo ka tirsan Shiinaha iyo Soomaaliya inay yihiin dalal gaar ah isku magacaabay wasiirka arrimaha dibadda Taiwan Joseph waxa uu shalay sheegay in Taiwan iyo Somaliland oo iyana sheegta inay ka go'day Soomaaliya iyo Shiinaha ka kala go'een ay ku heshiiyeen inay wakiilo u soo kala dirsadaan labada caasimadood safaaradda Shiinaha ayaa qoraal ay soo dhigtay Twitter-ka waxay iyada oo magacaabin Somaliland uga hortimid xiriirka la sheegay Taiwan in ay sameysanayso waxayna wacad ku martay inaysan u dulqaadan doonin cid kasta oo la macaamisha Taiwan dunida waxaa ka jira oo kaliya hal China Taiwan waxay qayb ka tahay China isla markaana jamhuuriyadda dadka Shiinaha ayaa ah dawladda kaliya ee sharci ahaan matasha Shiinaha oo dhan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay safaaradda marnaba ma ogolaan doono in urur dhinac ama xisbi siyaasadeed uu qayb ka mid ah dhulka Shiinaha gooyo waqti kasta iyo hab kasta Taiwan waxa iyada oo aanay cidna ka hormarin karin ka tirsan tahay Shiinaha
qoraalka safaaradda Shiinaha ee la soo saaray saacado kadib markii xiriirka ay ku dhawaaqeen Somaliland iyo Taiwan ayaa sidoo kale lagu sheegay in Shiinaha uu ka soo horjeedo cid kasta oo taageeraysa gooni u goosadka Taiwan. dalalka dunida oo dhan ayaa waxa ay u aqoonsan yihiin in China ay tahay Taiwan dhulkeeda, taasina waxa ku sii kordhinaysa Somaliland cadaadisyada ay dhawaanahan wajahaysay ee salka ku haya in aqoonsi caalami ah ay raadiso, iyadoo aqoonsigaasi dad badan ay u arkaan in dhibaatooyinka uga imaanaya marba marka ka dambaysa Somaliland ay sii kordhayaan. ugu dambeyntiina dad badan oo taxliiliya siyaasadda ayaa u arka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya ay u aqoonsatay madaxweyne muddo 2 sano ah si ku meel gaar ah u hogaaminaya Jubbaland inuu iminka la yimid siyaasad furfuran oo uu doonayo in uu uga soo dhawaado dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya. dadka qaar ayaa waxay sheegayaan in Axmed Madoobe sida uu uga hadlayo xaaladaha siyaasadeed ee dalka ay muujinayso in culays siyaasadeed uu ka haray, isla markaana waxa iminka ay leeyihiin Axmed Madoobe waxa uu furan dhaba kale oo ah in uu dowladda federaalka Soomaaliya la qaybsado inta xilka uga harsan madaxweyne Farmaajo guud ahaanba kheyraadka labada dhinac ka dhaxeeya. sidoo kalena Axmed Madoobe ayaa dhawaanahan waxa uu si kulul u cambaareynayay talaabooyinka dowladda ay qaadaysay. warkii caalamkana waa naga inta. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino.